السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيارتي ذا سيدا وذشين بكسو دوادا مركلة يساف تي في ورينا ذيريال وإذن سلام يا ميل بدوني ذا كجوكتان teeda kale bahalkii waad qaadeen hal mar baa saa u wada qaadeen markaasaad marka aad laba kun aad u yara dhaweyseenba waad iska dhigteen inaad arwaa ilowdeen bahalka kor u sii wada oo labada kun gaarsiiya aan ku bilaawnay wararkii ku saabsanaa Arsenal iyo suuqeeda balse intaan wararka hore aan u gelin aan ku bilaabay ciyaaryahankii Arsenal number 7 ka u xirna waa Bukayo Saka ayaa xalay hat-trickiisii ugu horeeyay ee kaariyadiisa intii uu badan ciyaarayay dhaliyay iyo hat-trickii ugu horeeyay kaariyadiisa ayuu xiray kolka horeba obvious ay iska ahayd Bukayo Saka mar walba oo age-kiisa uu sii weynaanayo inuu ciyaaryahan aad u weyn uu sii noqonayo hase ahaatee ciyaaryahankaas inkastoo xalay Manchester United fans ay iska sacbatuman hayeen laakiin waxay iloobeen inuu ciyaaryahankooda uusan ahayn sacbatunkaana uu banaanaa kaliya iyo reer Arsenal ma fahanteen ciyaaryahanka waxaan leenahay congratulations to you maadaama aad xalay ay ku ahayd habeenkii ugu horeeyay ee aad xirtay maartay hat-trick-gaaga okay aan hore ugu sii socono marka suuqii Arsenal maxaa ka cusub waxaa ka cusub suuqa Arsenal maanta in Arsenal ay raadinayso ciyaaryahankan difaaca ah waa 22 sano jir Dutch ayuu u dhashay ama Netherlands sida u taqaano ciyaaryahanka waa difaac waliba difaac u fiican oo dhanka oo maartay Saliba ku ciyaaraa waa ciyaaryahan waliba flexible ah wuxuu ka dheelaa sidoo kale right back ayuu dheelaa season-ka hadda dhamaanayay 34 ciyaarood ayuu dheelay 2 gool ayuu dhaliyay 2na waa uu caawiyay Arsenal waxa la sheegayaa in ay ciyaaryahanka 30 milyan ay u bandhigtay Ajax laguna soo celiyay saas ay wararka sheegayaan hase ahaatee haddana wali Arsenal wada hadal ay ku jirtaa ayaga wada hadal ay ku jiraan ayada iyo Ajax runtii Arsenal ciyaaryahanka way kaga dhagan tahay ayaa la leeyahay waa ay daba taagan tahay sidoo kale ciyaaryahankan Manchester United ayaa raadinayso hase ahaatee iyadu hadda waxa ay ku mashquulsan tahay waa Mason Mount sida ay ku soo xargelin lahayd ayaa leeyahay marka ciyaaryahanka Ajax waxay ku rabtaa lacag 50 milyan Arsenalna 30 milyan ay bandhigtay waa lagu soo celiyay hase ahaatee waxa la Ajax wali waxay aqbali kartaa lacag 40 milyan waa ayna wada hadlayaan ayaa leeyahay hadda aan idin la hadlayo runtii aad ayaa loogu wada suuqa Arsenal maanta walibana caawa xilli dambe ama maanta xilli dambaba jawaabo fara badan ay heli doonaa Arsenal lacagtii ay u bandhigtay sidoo kale ciyaaryahankan West Ham lacagtii ay u bandhigtay ay ku raadinaysay isna Declan Rice lacagtaasi waxa weeyaan waa 90 milyan oo waliba bonuskeedii uu la jiro 100 milyan ahayd marka 10 milyan gaar ay Arsenal maartay u bixin doonaan laakiin 90 milyan ay iyaguna ay la tageen meesha oo markale ay celiyeen iyaguna maanta ama bariba maanta xilliyeeda dambe ama bariba jawaab ayaa laga heli doonaa sidoo kale Kai Havertz ayaa isna jawaab laga heli doonaa Arsenal ay la noqotay lacag 50 milyan lacag 50 milyan ay la noqotay inkasta oo 55 milyan ay maartay in ay bixiso looga baahan yahay shanta kalena iyadana sidoo kale ciyaaryahanka maartay ciyaarta uu soo bandhigi doono ay ku xiran tahay isna maartay maanta ama bari ayaan jawaab ka heli doonaa runtii maanta Arsenal suuq aad ayaa loogu wadaa saddexda ciyaar ay walibana waxa la leeyahay diiradda ay saartaa hadda la taagan yahay waa ciyaaryahanka Kai Havertz waa Declan Rice waa Timber oo Ajax ay doonayso inay ka saxiixdo Kai Havertz ciyaaryahankaas isagu salarigiisa waxa leeyahay Pawik wuxuu qaadan doonaa lacag 200 iyo maartay xooga ciyaaryahanka lacag inta leeg ayuu qaadan doonaa waa Pawik markii la dhaho isbuuci markii lacag badan ayuu qaadanayaa Declan Rice sidoo kale isna 200 ka yar ma qaadan doono hase ahaatee Arsenal aad bay ugu howlan tahay ciyaaryahanadaas sidoo kale Arsenal ma iloobin baa leeyahay wali kama aysan bixin ciyaaryahankii Romeo Lavia isna waa ay daba taagan tahay oo Arsenal ciyaaryahanka aad bay u danaynaysaa in ay soo qabsato sidoo kale warka cajiibka leh maanta idin haya waxa kamid ah in Arsenal ay ku tiri Partey waad fasaxan tahay waxaana raadsan kartaa kalaab kale that means ciyaaryahanka hadda ma diri karto Arsenal oo ma dhihi karto bax waan ku fasaxnay waa iska bixi kartaa
maadaama contractigiisa weli ay socoto 2026 ay dhamaanayso. hase haatee waxaa loo sheegay haddii uu baahan yahay inuu baxo inuu bixi karo si Arsenal lacag ay maartay uga faa'iido oo ay iibiso inta uu kaga tagi lahaa si free ah. marka ciyaaryahanka adna waxaa lagu yiri waxaad u fasaxantay inaad kalaab kale aad raadiso. isna waa arki doona ayaa soo dalban doona Partey ma ka tagi doona samarkan Arsenal. waa arrin la yaab leh. waxaa hortii la fasaxay Xhaka iyo Partey haddii la fasaxo ay baxayaan waxaa ogaataa Arsenal suuqan maartay inaysan kaftami doonin. Arsenal in ay maartay Declan Rice aysan ka kaftami doonin. Arsenal maartay inaysan ka kaftami doonin Romeo Lavia iyo ciyaaryahankan Kai Havertz iyo Timber in aysan ka kaftami doonin oo ciyaaryahanadan ay keeni doonto. runtii maanta waxaa u maleynayaa sidoo kale in aan maartay waxa sidaad iga barateen maalin walba update hal video aan soo dhigi jiray balse maanta wararka sida ay u hayaan Arsenal iyo ciyaaryahaneeda ay lacagta ay bandhigtay iyo xilliga maartay laga doonay in ay jawaab hesho waxay u egtahay caawa xilli dambe ama maartay haddii ay suurto gasho meelaha cishiya maqribadiiba haddii Arsenal jawaab la soo siiyo inaan video kala soo duubi doono. haddana waxay idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.